بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة بين سنين سوق ليسو تاريخنا والبية طوانك بيش جولاي لوضع كوني لواتنك وحافر حد وينا وبشارة إن مساجدي الصدح بلاد يكبض إن حرنيد ديب لو فري ودولة ديبو فرتي سيداس دراديد ما ننتا ثلاثة إن شاء الله تعالى وأي بريون نجح بتوع السنين صلاة الصبح وأصله الرئيسة وحنفرد دونا مساجدك أبو بكر الصديق مساجدك السجسكة هي مساجدك لو فربضنا ولا فريدونا إن شاء الله تعالى ما دام الدولة ديبا أي حيلتان كي كقاضي مساجدي هي ذا أمرك هرانا حدي وأمرك حدي هدنا أمرك كقاضي هذه مساجدي لفري أنك حق مليهن لا شرعا ولا عقلا إنني نحن مساجد ويسيحنا نساه شروطها دولة حقيقة كيمد ومساجد اللغو فري ويحي لإلالين كره أما لفولين كرنا وفولين إن شاء الله تعالى ويحي لفولين كرواية وأتكادنا دوي أتكاتي والفولين كرواية كحالي ديدا إلى مركز لكن مساجدها سيحر نادين وطلب مسلمين ليهن هكو سيحر نادين يضو واحد ضرورو كيني سايسن شيرين arrintaasi ma saxsana sida masaajida qaarkood qaateen iyo go'aamada ka soo baxayana waa la igala quruxsan yahay waana laga fiican yahay ficlan anagoo marka taa ka duulayna masaajidka insha Allah taala sigiska waa la furi doonaa biidnaahi tabaaraka wa taala waqtigaas baana furitaankiisu ka bilaaban doonaa dib baa loo furi doonaa dadka musalliinta ah oo runtii aad iyo aad muddo masaajidka ka maqnaa haddana aad u jeclanay masaajidkii dib ugu soo noqdaan iyo masaajidii kaleba waa bishaaro weyn waana wax lagu farxo in Ilaahay tabaaraka wa taala mar kale inoo suurtageliyo inaynu goobihii Ilaahay dhulka ugu jeclaa aynu dib ugu soo noqono ku cibaadaysigooda isla markaa waxaan ilaalin doonaa insha Allah taala oo ay tahay inaynu ilaalino arrimaha fayadhowrka ama taxadarka xanuunkan faafitaankiisa lagaga taxadarayo Ilaahay baa caafimaad haya Ilaahay baana cudurka keena haddana asbaabta inaynu qaadano taxadarno waa loo baahan yahay sababtuna waxay tahay horta shariicada ina amartay in waxyaalaha dadka dhibaya cudur ha noqdo ama masaa'ib kale ha noqoto laga taxadaro laga hortago muxuu ahay shariicada ina amartay nusuusteeda iyo adiladeeda hadda hoos sii geli maayo ومن الأبادي هرت حنون كني وواحد شروي سيد dadka qaarkood ay ku sheegayaan waa ismoodsiis iyo barnaamij u jeedooyin kale laga leeyahay waa dhici kartaa numberka la boonbooninayo in boonboonin ku jirto waa dhici kartaa numberka iyo tirada la sheegayo laakiin cudurku xaqiiqo jira way dad badan oo asxaab laayay dad badan muxuu ahay hadda u jiifaan oo u jiran yihiin gaar ahaan magaalada Nairobi Kenya marka la yiraahdo kuma sii jirto wadanka intiisa kale sidaas daraadeed xanuunku maadaama xaqiiqo jirta uu yahay in aynu la tacaamulo aynu taxadarkiisa qaadano waa shay loo baahan yahay waxa saddexeeya haddii aan la ilaalinin shuruudaha fayadhowrka ama taxadarka ee dawladda xaggeeda ka yimid ee goobaha la isugu imaanayo dhan loo dhigay masaajiduna ka mid tahay haddii aan la ilaalinin waxa dhici karta inay sabab u noqoto in markale masaajida dib loo xidho marka intaasba anagoo wax ku dhisayna waxaan leenahay insha Allah taala masaajidii dib ay u furmi laakiin waa inaynu taxadar qaadano waana inaan dadaal sameeyno waana in ruux walba uu mas'uuliyadda dhankiisa ka qaato oo ruux walba asagu uu dadaalka uu qayb ka noqdo insha Allah taala muxuu ahaay oo uusan noqonin ruux la qasbayo wuxuu rabin lagu qasbayo inuu san noqonin xaqiiqadan
iyo arintan jirtay inay laga maarmaan tahay in si wada jir ah insha Allah taala in uga qayb qaadano si aynu u taxadari lahayn goobaha cibaadada iyo masaajida Ilaahayna tabaaraka wa taala in ugu cibaadeysan lahayn taas anagu marka sidoo kale tixgelinayna waxaan go'aansanay oo maamulka masaajidku aansaday in ay musqulaha iyo goobaha weysadu ay xidhnaan doonaan saas daraadeed ha laga soo weysaysto guryaha laga soo weysaysto talabaadna waxa weeye in kala fogaanshihii goobaha la isugu yimaado dhan loo dajiyay iyadana inaan ilaalino ilaahay fadligii masaajidka waxaan u habaynay labada ruux ee isku xigta intay isu jiri lahaayeen iyo wixii u dhaxayn lahaa waa diyaarinay marka goobaha loogu talagalay loo asteeyay in ruuxu istaago meesha un baad istaagaysaan meelaha loo asteeyay inaan lagu tukaninna lagu tukan maayo sidaas hadda masaajidku u habaysan yahay oo laga shaqeeyay alxamdulillah waxa kale oo aan ku talin lahayn maadaama masaajidii tiradii hore qaadi jireen ayna qaadi karin oo kala fogeynta dadka la kala fogeeyay tiradu aad u yaraan doonto masaajidu qaadayso in la isqaybiyo oo masaajida la isu qaybiyo hatta hadoo kaleeto masaajida waaweyn kaliya in la soo aadamayo hatta musallayaadka meelaha mawlacyada ama suuqyada ku yaala ama meelaha kale lagu tukado waxoogaa in la isu qaybiyo oo aan hal masjid culays la soo saarin iyadana waa laga maarmaan inaynu ku baraarugsanaano insha Allah taala sidoo kaleeto inaga muslimiin hadaynu nahay nadaafada asal inoo ah inaynu insha Allah ku dadaalo nadaafada iyo gacmaha dhaqitaankooda si joogto ah khaasatan marka masaajida la galayo meel gacmaha lagu dhaqo waxyaabihii gacmaha lagu daahirinayay ayaa muxuu ahay la dhigaya in muxuu ahay sidoo kale muxuu ahay maryahan iyo waxyaalahan afka lagu xidho in la soo xidho iyadana waxa shuruudaha ka mid tahay oo goobaha la isugu yimaado dhan ay dawladdu u dajisay aanan iyadana ka tilaabsan kareynin marka in iyadana la soo qaato suuqyada dhan baa lagu qabaa waddanka dhan baa muxuu ahay magaalada dhan baa qabta marka iyadana in la fududeysan goorta masaajida la imaanayo insha Allah taala waxa iyadana laga maarmaanay inaynu ku baraarugsanaano in marka masaajidka la soo galayo aan si jamaaci iyo si cidhiidhiya lagu soo galin marka laga baxayana inaan si tartiib loo baxo oo la kala dambeeyo oo dadka qaarna ay markay salaada tukadaan basi baxaan dadka qaarna sunnaystaan sida loo kala dambeeyo maxay yeelay hadii ridihii laga soo galayay iyo marka la baxayaba cidhiidhi meesha ka yimaado dadku ay cidhiidhi muxuu ahay la sameeyo طبعا waxa iimaanaysa markaasi in ay mushkilad abuurto oo ay timaado shuruudii lama ilaalinayo masaajidii shuruudii way jabiyeen muxuu kadibna inagii aan sabab u noqono in masaajidii mar kale dib loo xiro marka inaynu iscelino oo muxuu ahay bixitaanka soo galitaanka aan ka dadaalo in muxuu ahay ayna iridaha cidhiidhi ka dhicin oo si tartiib loo soo galo tartiibna loo baxo ayadana inaad ku dadaashaan insha Allah taala hadii waa qodob kale hadii masaajidku buuxsamo oo intii loogu talagalay ay soo galaan iridaha masaajidka in la xidhaa dhici karto oo dadka cid kale ayna soo galin si wixii laga taxadarayay ayna u dhicin hadii irida masaajidka la xidho masaajidka ka buuxsamo in marka aadan dagaalamin oodan buuqin oo aad duruufta jirta qiimayso asalka ruuxa muslimka in masaajid loo diido ma aha asal ahaan laakiin duruuf naga xoog badan baa haysata oo aanan muxuu ahay khiyaar ku lahayn ama khiyaar aanan lahayn saas daraadeed hadii masaajidkii waa ka buuxsamay lagu yiraahdo inaad muxuu ahay iska noqoto meel kale oo ku tukato inaad raasato inaad sugto oo aad meeshii laga baxayay yaani koox ahaan loo istaago oo meeshii iyadana ay saxme iyo cidhiidhi iyo dad taagan ka abuuranto iyada lafteeda looma baahna hadii marka masaajidku ka buuxsamo oo dhacdo in irida la xidho inaad marka iska noqoto ka tagto meelo badan oo lagu tukada jira marka meelaha inaad ku tukato isku day insha Allah taala waxa kale oo iyadana muhiim ah inaan baraarujino dadka duruufaha khaaska caafimaad leh muxuu ahaayay jiran sanbabada ka jiran ama kaliyaha ka jiran ama muxuu ahaay jirooyinka muxuu ahaay joogtada qaba
inta badan xanuunkan u jilicsan ayagana waxaan kula talin lahayn inay ku tukadaan meelahooda khaaska ku tukadaan oo meelahan la isugu imaanayo inay ka taxadaraan ayaan kula talin lahayn sharcanna haday baqaan oo xanuunkan wax laga baqo waana jiraaye haday baqaan dadku cudurdaar sharci ay haystaan oo jamaacad kaga maqnaan karaan waxa la mid ah dadka da'da ah ayaga laftooda waxaan kula talin lahayn inay meelahooda ku tukadaan inta Ilaahay tabaaraka taala uu duruuftan suun wax isaga bedelayaan waxa la mid ah sidoo kale caruurta yaryarka ah oo ayagana muxuu ahay kulay nidaamka hadda shuruudaha masaajida lagu fasaxay caruurta yararka in masaajida aan loo ogolaanin baa kamid ah in marka wax weeyada lafteeda aad dareenkeeda aynu lahaano caruurta yararka aan la soo kaxaynin iyadana muxuu ahay waa ku tala bixinayna waxa kale oo iyadana qodob kale ah cidii dareenta xanuunkan calaamaadkiisa koronaha calaamaadkiisa wax kamid ah dareenta ruuxa qandhan oo kale ama xaraaradiisa iyo kuleelkiisu sareeyo ama qufacaya ama hindhisaya muxuu ahay wuxuu noqon karaa xanuun kale oo hargabna waa noqon karaa virus kalena waa noqon karaa laakiin maadaama muxuu ahay cabsidaasi jirto dadkaas wuxuuga dareemaya inuu xanuunka calaamaadkiisa wax kamid ah is dareemaya inuu hayaan inuusan sidoo kale iyagana masaajida aysan imaanin intay sabab u noqon lahaayeen dad muslimiin iyo walaalahood inay u gudbiyaan xanuunkan oo sabab u noqdaan Ilaahay baa gudbintiisa iidanka Ilaahay bay ku gudbaa xanuunka laakiin sabab inaysan u noqonin iyadana insha Allah ta'ala inaynu ku dadaalo oo aynu ka taxadarno biidnaahi tabaaraka wa ta'ala waxa kale oo iyadana kamida talooyinkan doonayna insha Allah ta'ala inaan mujtamaca gaarsiino waxa jiri doona masaajidka khaasatan masaajidka nagsiiska iyo masaajida kale in badan oo kamida dhalinyaro waxa jiri doona yaani wax weeyaan dadka tawjiihinaya oo kala hagaya oo dadka dhex jooga qaar ridaha jooga muxuu ahay oo mutadawiciin ah oo dad muxuu ahay volunteer ku shaqeynaya dadka marka in loo dhaga nuglaado talooyinka masaajidka iyo maamulkiisa ka baxay tawjiihaadka in loo dhaga nuglaado bal inuu ruuxu si gooni ah isagu isu xil saaro meeshii isaga la sixi lahaa inuu dadka wax ka saxo oo isxilqaankaasi kulliga insha Allah ta'ala aynu yeelano ayaa loo baahan yahay biidnaahi tabaaraka wa ta'ala raga dhalinyarada ee idin kala hagayana in aad u dhaga nuglaataan insha Allah ta'ala masaajidka sigiska ama masaajidka Abu Bakr Siddiq sigiska biidnaahi tabaaraka wa ta'ala waxaan ku tukan doonaa qaybii hore lagu tukan jiray waa ku tukan doonaa insha Allah ta'ala waxa kale oo ku tukan doonaa qaybta dambe ee sabanka ee dhismuhu ka socday gogolima taalo laakiin iyadoo sideeda baa lagu tukan iyadana waa diyaarinay waa lagu tukan doonaa insha Allah ta'ala masaajidka waxa laga gali doonaa kii hore meelihii laga gali jiray salaada duhurka iyo salaada casarka masaajidka dambe oo muxuu ahay qaybta dambe ee masaajidka laga gali maayo dhanka sabanka laga soo gali maayo dhanka sabanka dhismihii baa ka socda saas daraaddeed lagama soo gali karo waxa laga gali doonaa dhankan sigiska ee masaajidkii hore ku yaalo ayaa kan dambana la mari doono laga gali doonaa waxa kale oo laga gali doonaa insha Allah ta'ala hotelkan iyo gurigan ku dhagan masaajidka ee Sakina muxuu ahay dukaamadiisa ayaa la soo dhaxmari insha Allah ta'ala kadibna halkaas ay irid ka bixinay halkaana waa laga soo gali masaajidka qaybtiisa dambe oo halkaana waad u mari doontaan biidnaahi tabaaraka wa ta'ala marka qaybta dambana waa ku tukan doonaa maadaama dadka in la kala fogaado oo muxuu ahay aan la isku dhawaanin loo nadaamiyay masaajidkii wali wax u laalaaban yihiin haddana inaan ku sii tukanno ishagana insha Allah ta'ala waa qorsheynay waad ku talagaleysaan insha Allah ta'ala waxaan ku talin lahayn oo runtii talooyinka muhiimka kamid ah in ay dadku soo qaataan sijaayado kuwa yaryar oo xataa muxuu ahay inta aad dhigayso wajiga iyo gacmaha aad dhigayso xataa hadii aad heli karto oo jeebka lagu qaadan karaa jiro iska fudud way fiican tahay kuwa kale roon cidii soo qaadan kartaa ha soo qaadato sijaayadahaasi marka waxaan dhihi lahayn bal la isku dayo insha Allah ta'ala walow dadka qaar kood laga yaabo inay ku adkaato haddana duruufta aan ku jirno inaad qiimeysaan baa loo baahan yahay duruuftu waa duruuf runtii iska adag masaajidu 3 bilood bay inaga xidhnayd cabsi waxa jirta in mar kale haddana amar lagu soo rogi karo
inaynu marka muxuu ahay dadaalo waxyaalo badan aan qaadano waxyaalo badan culays is saarno waa laga maarmaan si ay masaajidii noogu furnaadaan cibaadadiina insha Allah ta'ala aynu u wadano oo aynu ugu cibaadaysano isla markaana hadana taxadarkii loo baahnaa aynu insha Allah ta'ala qaadano iyadana wax way qodob muhiim ah waxaan idin leeyahay ilaahi tabaaraka wa ta'ala muxuu ahay acmaasheena ha aqbalo مصائبتن إن هيستا عذرنا يا أمراضنا إلهي تبارك وتعالى هينك كرقاده ومدة أنت قول متينا إلهي تبارك وتعالى هو نحرس المسلمين تا أنت تشرن وحنون صنية أما حنون كلبه هينا إلهي عافماد هسيو عافماد دقدقة قضب داس يمساجك إنه تلاذة إنه أفر مدون صلاة الصبح إن شاء الله تعالى أيان دوني إن لو داقه مركلام كعلنا يا waxaan leeyahay aynu dadaalo insha Allah ta'ala aan isxil saarno ruux walba naftiisana mas'uulha ka noqdo dadka kale walaalihi ana wanaag ha ku hago oo talada ka qayb qaato oo deganaanshaha laga qayb qaato is ilaalinta iyo taxadarka insha Allah ta'ala iyo xilkasnimada aynu insha Allah ta'ala wada qaadano biidnaahi tabaaraka wa ta'ala qaybtii dumarku iyadana waa u furan tahay dumarka qaybtoodii way u diyaarsan tahay iyagana insha Allah ta'ala ragana qaybahoodii bay ku tukan doonaan Allah idin barakeeyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahina waqtigaas nabad iyo khayr ha inagu gaarsiiyo ilaahina tabaaraka wa ta'ala xurriyadii aan ku cibaadaysan jirnay iyo caafimaadkii aan ku cibaadaysan jirnay iyo cidhiidhi la'aantii aan ku cibaadaysan jirnay kuna shaqaysan jirnay ilaahay inoo soo celiyo hada wabillahi tawfiiq وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم